Soomaaliya waxa hadda Mareykanka mar ay la rabeen inay ibaan qof waalan oo dhahaan adigu marka boqortooyo iyo dictator waa isku mid labadooda isku qaabin dadkay leeynayaan qof hadli kara mal calaykum salaam riwaayad hor soo dhaw labadaas hadda kadib ayaan ka dagaalanaa hadii marka farmaajo maanta farmaajo waddanka haduu qabsan lahayo fahad wada waan lahayd wixii ka dhacay laakiin tan ilaahay baa soconaysa marka walaalayaal qofka waddanka le waxa lagu gartaa wuxuu kala miisaamaya isagoo waddankii iyo dadkii Soomaaliyeed aan heshiin oo niman waalan ay yimaadeen kan dadku u xiga iyo dhulkiisa ma soo gasho cadow ama baraha bulshada ayaan ha ahaadeen cadow muhiim ah duu faadi yahay oo caruurta iyo tigreega waa isku mid cadow weey ama cadow Soomaaliyeed ha ahaado ama cadowgii madooba ha ahaado ama cadow cadaan ha ahaado waxa lagu gartaa marka qof dhahay kaaliya boosaaso laaya dadka kaali farmaajo buu hoodle kaali farmaajo galdo kan leh qof wax garanaya ma aha qof iska xanaaqsan waxa lagu gartaa marka qofka ii sheeg marka soo xadiiski ma garanaysaan labadii haweenahayd ilmaha isku qabsaday ad garanaysaa kulligiin garanaysaa markii nabi daawud alayhi salaam uu xukumay midii aan dalin ay markuu arkay sida nabadii loo qeylay ilaa marka qaar kood qofku markuu qeylo sameeyo dadka qaar kiisba u maleynaya moogtahay qeyladu marka qaar waa shaqeysaa laakiin markasta ma shaqeyso marka nolol iyaga waxa ku qofal maamaadi ahayd niman qeylin hooyada wax ma siiso